maalmihii u dambeysay inuu socday dhaqdhaqaaq iyo gardarro duulaan hor leh oo maanta anigu isbeddelka cimilada ee dhacaysa uu mar labaad isku dayayo inuu dhulka Puntland ku soo weeraro runtii dulqaad badan bay dadka reer Puntland muujiyeen marar badan oo hore iyagoo ixtiraamaya daris wanaagga iyo nabad ku noolaanshaha geyiga inta badanna dhegaysanayay dadka samaha jecel ee mar walba la soo xiriiraya Puntland sidii geyigan uu ahaan lahaa mid nabdoon oo horumarka bulshada ka shaqeeya waxaase nasiib darro ah in maalinta ka dambayso ay sii kordhayso dhaqdhaqaaqyada iyo iskudayada waxaan runtii halka uga jeedinaya dhammaan shacabka Puntland inay sharaftii karaamadooda dhowraan deegaanadooda iyo dadkoodana difaacaan ciddii isku dayda xadgudubna ay kala kulmi doonto waxay ka soo raadisay dowladda